رجوا إسراعنا واحد أنا قبل أنا كره داهلين وحلبوا يعني وحلبا كبحيلهم ما أنت تدوير ثالو maxaad ka taqaanaa gabadha ugu quruxan galmudug oo rag badan darteeda isku dagaaleen gabadha u qalantay inay tartanka quruxda badan Afrika ku matasho Soomaaliya haddaba daawade intaan u gudagelin warbixinta xiisaha badan fadlan shaahda muuqaalkan oo la wadaaga asxaabtaada aniga waxaan ahay gabadha ugu istaalka badan ugu quruxda badan galmudug yani rag walbana yani way soo damcaayaan aniga waxaan ahay gabadha ugu quruxda badan galmudug haddii aad quruxdeeda ka heshay استلكي كهشي وحديلا فيديو هنا لشي شرقريو ayaan garaad xirsi oo ku magac dheer Samaara waa gabadha ugu quruxda badan magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud oo ku suntan xarunta jacaylka iyo quruxda hablaha waxana Samaara koobka quruxda ku haratay isteelkeeda iyo qaab dhismeedka jirkeeda oo rag badan cajabiyay Samaara oo aan kula kulmay Guriceel waxay ii sheegtay in rag badan ay jacayl iyo xiriir u soo bandhigteen balse ay ka diiday maadaama aysan u qalmin waqtina aysan u haynin sida iyadu ay sheegtay horta qaabka jirkaygu dhisan yahay sidoo kale tafays aniga faaxan badan milay yani naan indhaawina sandheerahay afqor xoolo alxamdulillah maxay caawiyayna aniga dadku ay dhaayeen la kula anigana kulinkayga yani chance ma hayi saas waaye anigana dadku inta aragtida dad raadiyo boqolkiiba ani marka wadada ana xataa xishoodo waxa sida maxay dadkana ka soo eegayaan Samaara ayaa dadka aqoonta u leh ee la dhacay quruxdeeda u arkaan inay tahay gabadha u qalantay inay Soomaaliya ku matasho tartanka quruxda ee Mrs Africa balse aanay ka qayb galin tartankii Muqdisho sidoo kale Samaara waxay sheegtay in marka ay dhaxmarayso bartamaha magaalada Guriceel ragga wata baabuurta ama meheradaha kula laamiga hareerihiisa inay ku mashquulaan quruxdeeda haddaba sidee ay Samaara u aragtaa quruxdeeda maxaysa dadka kala kulanta siiba ragga waatan iyadoo ka waramaysa arimahaasi oo dhan markaas daamaasha dukaanka wax soo qabsan markaan gaari kale ka digmaago rag igu mashquula ama rag gaariyaasha joojina way jiraan iyo rag xataa hooshada ka baaqanayo oo dukaamada fadhiyaxta iska mashquulayo aniga ma aaminsani maanta gabar iga qorxoynay Soomaaliya joogto qorbi joogto waxaan dhihi lahaa dadka qorbaha joogo waqtinimaha waqtina anigu la hadlo yani iga noqdaan dhihi lahaa diswaay aniga shaqooyinkayga iska badan طبعا والله أنا قررت أهانتي ده قفوا أوجين قروحي اسمنا أنا قروحي دون سوقي هاي قيمة جن سوقي ده عدد واحدة دون سوقي الحمد لله دتك كنا يعني وإيش يا جسم هنا قروح هذا مرة بسببك رجوا إسراعنا واحد أنا قبل أنا كره داهلين وحلبوا يعني وحلبا كبحيلهم ما أنت تدوير ثالو رجوا حاجر أو أنا جاب أو سن يعبى أو صدق أفر من سجارة ساسة أنا جا معحني أيجا سن تعبى أنا ما ده عبي محي عبي أنا dadku ay dhaayeen la kula anigana kulinkayga yani chance ma hayi saas waaye anigana dadku inta aragtida dad raadiyo gabdho way jiraan dad waxa jira gabdhaha aniga comment igu soo caaya matana qurux leh matana aniga quruxdeeda ana isku qarsan ama caaya ma caaya dikla afkaas ka daalinaan idii lahay waxaan aaminsanahay inaan quruxda Afrika maanta aan ka qaadi karo markii galmudug laga soo tago dabcan Soomaaliya oo dhan marka hadaftan waxaan dhahay waan xanuunsaday alxamdulillah ilaahay baarta ma hadis kale waxa kale tan ma xanuunsanay il bil aadan waaye laakiin hadaftan just wana qaba ragade qaar badan ay kor hadleena jiro laakiin alxamdulillah hadii ilaahay baa ma hadis kale ani hadda marka baxayo hadana adkaar aan akhrisan aniga dhan habeenkii ma sii caqaro qarro aan dareema cabsi badan laakiin anoo adkaarta akhrisan ama quraan akhrisan baaka ma kaday karo quruxdan horta ilaahay baa siiyay waxa iska keenkeen habeeraatay ma ahan justina waan ag taaganahay qof makeup iyo wax marsiya ma aan kalsoonida isku qabaan faanteen alxamdulillah waxaan ahay gabadha fashion ka maanta ugu shidan galmudug kana aan misanahay gaar ahaan si boqoradi